wiilkan youtuberkeed meeshan ku aragto waxa haysataa dib aad u weyn wax uu isagu jeclaystay in uu qarsado oo uu private ka dhigto ay dadku rabaan qasab inay banaanka u keenaan horta Soomaalidu ama dadka ibnu aadamkii wixii laga qariyo aad buu jecel yihiin oo hadaas dhahdo wax qari waxa ku soo gaaraysa arin ah maxaad u qarinaysaa sababtu u qarinay maxay tahay maxaa ku sababay waxaas miyaa wax khaldan ah macnaha haddii aad wax qaris dhahdid mar walba hadal baa kaaga imaanaya hadduu hadal kaaga imaana dad baa wixii baarayaba oo macnaha raba wixii inay ogaadaan marka hal mar sheekadan si fiican idinka daba geeyo wiilkan waa Soomaali Chunks baa la kulli wada garanaysa ma malinayaa waa wiil aad u caana oo macnaha international laga yaqaano waana youtuber marka ninkaani isaga oo macnaha podcast ka dhaxle ayaa la arkay haddii aan aroosayo ama aan gabadh guursanayo gabadhaasi private bay ihaan doontaa banaankana keeni maayo oo macnaha anigu waxaan jecelahay gabadhaan aroosayo in aan private ka dhigto oo macnaha wuxuu jeclaystay marka uu xaaskiisa guursado in uu qarsado oo macnaha isaga kaliya private u ahaato oo marka waa go'aan ay isla gaareen isaga iyo gabadha uu rabada inuu arooso haddaba wiilkii uu aroosay oo macnaha meherkii baa dhacay dibku wuxuu ka bilaamayba macnaha waxa jira gabdho crash ku noqda moogtahay gabadh walba oo wiilka crash ku ahayd qalbiga jabay crashkeygii baa guursaday crashkeygii baa aroosay oo macnaha waxay aamin laayihiin baba ninkii inuu wax jeclaaday oo uu naag aroosay meesha ugu dibka badan leh ee ay taageerayaashiisa waalwaalan kuwa caadiga ma kuwa macnaha yara degdeg badan leh qof walba wuxuu leeyahay taageero hore u soo fadhiya moogtahay taageerihiisaasi meeshii ugu xumayd ee ay wax ku soo qorayeen Twitter bay ahayd macnaha waxay gaarsiiyeen wiilkan in uu deactivate Twitterkiisa siiyo X baa loo bixiyay hadda taqaani ma umaleeya Twitterka macnaha Twitter dhan waa iska dhaafay ninka deactivate uu siiyay markuu arkay qoraalada ay dadku soo qorayaan iyo waxyaabo ay ka shaqeynayaan dadku waxyaabaha ugu daran waxa weeyaan waxaad arkaysaa dad gabadha caynaya markaan ku leeyahay cayna wax yar kuma caynayaan waxay ku caynayaan cayo waaweyn macnaha unan hadda ka sheegi kar meeshan unan rabin inaan ka sheego waxyaabaha iska yar normalka meesha laga sheegi karo waxa weeyaan lacag bay ku raacday ninka lama sii joogi doonto waxa siisay 5 sano 4 sano 3 sano 2 sano macnaha waxyaabo noocaas oo kala iyo waxyaabo ka daranba meesha ku soo qorayaan dadku midda aad ka waalida ah waxa weeyaan bal sawiro adoo aroosay oo la rabin gabadhaada inaad public ka dhigtid oo gabdho kale la soo ururiyo aroosay jooga oo la yiraahdo gabadhan waay haddana la yiraahdo gabadhan waay sababtoo ah dadkani gabadha saxda ah ee uu ninkan aroosay ma garanayaan gabdho Soomaaliyeed soo urursanayaan waxa iska leeyihiin tan waay macnaha hadaa u fiirstay gabdhaha isaga lagu soo agdhajinayo waa gabdho kala duwan oo macnaha waxa hadda waa maxay tan iyo tan isku ma eekay macnaha wad yar wareeraysaa sababtoo waxa weeyaan ninka dadku meena fahmin baba wuxuu rabay in uu samaysto wax private ah dadka ibnaadka ka ku dhahay waxa waan qarsanayaa kaama harayaan waxa ugu daran xaliye wuxuu yiri gabadha ninkan wuxuu ka bixiyay meherkeeda 300,000 oo dollarka Mareykanka lacag yar ma moogtay plus G-Wagon macnaha dad G-Wagon garanay halkan ku soo dhigaa sawirkiisa waa gaari marka xaliye wuxuu ku leeyahay ma gabadhaas uma qalmato lacagta intaas leeg in lagu meheriyo 300,000 oo dollarka Mareykanka ah iyo gaari G-Wagon ah waa qaalib u leeyahay macnaha gabadha meel fog u gaarsiiyay anu xaliye waan fahmi karaa laakiin waxa dhici karta wax adiga macquul kula ahayn inay hebel macquul la tahay taa waa mar walba ogaanaa qof aan $1 haysan iyo qof multi-millionaire ahna lacagta isku si uma arkaan oo tusaale ahaan wiilkan marka laga hadlo waa multi-millionaire macnaha lacag uu haystaa moogtahay marka 300,000 waxba lama ah adiga sida $1 kula tahay ay 300,000 la tahay marka anu aqrad ma dhigi karo dhanka lacagta waana sax ma dhigi karo sababtoo ah inaan naag meherkeeda 300,000 ka bixiyo iska dhaafe anaan haysan ba lacagtaas marka maadaama broke ahay arinta kama sii hadli karo